بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد أيها الأحبة، إن شاء الله تعالى waxaynu ka hadli doonaa waxaasaynu u bixinay الsunan الكونية أو السنة في القرآن أو السنن في القرآن oo ah qaabka rabbi u dejiyey dunidatan ay u kala socoto oo qof kasta oo raba inuu natiijo ama wax midho dhala uu dunida ka gaadhi kara ay ku tahay qasab inuu raaco. sunnada aynu ka warramayna markaa ereyga sunna la yidhaahdo fi luga waa aariiqa aw alqaacida, waa jidka ama waddada ama xeerka. waxaynu leenahay waa xeerar noloshu ay raacdo, waa xeerar kownka dhammaantii uu raaco, waa xeerar lagu qasban yahay in la fuliyo. bitacbiir alqur'aan haddaynu tilmaamno waa qadarka ilaahay. qadarku maaha ka bini aadamka oo qura ku saabsiisan ee kownkan dhan sibaa ilaahay u qadiray inuu shaqeeyo, sidaas baanu u soconayaa. ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay falan tajida lisunnati illaahi tabdiila walan tajida lisunnati illaahi taxwiila. ilaahay qaabkuu u dejiyey dunida tan isbeddel ka heli maysid baa ilaahay leeyay. mahmaa zamanku uu socdo, makaanku uu socdo, saas bay ku soconaysaa. hadday tahay dhismaha iyo qaabkay u dhisantay, hadday tahay qawaaniinta cilmiga ee ilaahay u dejiyey, iyo hadday tahay waxa bini aadamka ku saabsan, xadaaraduhu siday u samaysmaan, civilizationisku siday u dumaan, ummaduhu siday u dhismaan, siday u dumaan, dadku siduu u halaagsamo, siduu u badrhaadho, kullaha waa qawaacid ilaahay uu inoogaga warramayo kitaabka kooban ee qur-aanka la yidhaahay rabbi soo dejiyey. rabbi wuxuu ugu talagalay subxaanahu wa tacaala kitaabkaa haddaynu daraasayno oo si fiican u fahamno inaynu nolosha adduun guusheeda gaadhi karno, ta aakhirana guusheeda gaadhi karno. laakiin inaad raacdo waxa ka horaysa inaad fahamto, inaad garato waxa kane siduu u shaqeeyo. ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa ina kula shayin khalaqnaahu biqadar, ina kula shayin khalaqnaahu biqadar. wax walba baa ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala, shay dhammaantiiba qadar iyo jaangoyn baanu ku abuuray baa ilaahay leeyay. qaab baa ilaahay u maamulay, qaab buu u dhisay, qaabkaas baanu u soconaya. cidda waddo kale u martaa markaa ma gaadhayso. hadday horumar tahay waddaa ilaahay ugu talagalay, hadday dib u dhac tahay waddaa loogu talagalay. cidda waddadaa qaadaa horumarka waa gaadhaysaa, cidda waddada kale qaadaana dib u dhac waa gaadhaysaa. idan nolosha dhammaanteed ilaahay kitaabkiisa wuxuu kaga warramayaa inuu qaab u jaangooyay oo ay tahay bini aadamku inuu raaco. mas'aladan fahamkeeda maxaa ka dhalanaya? waxaa ka dhalanaya bay culammadu yidhaahdaan laba shay siiba. kow, coincidence waxa la yidhahdaa dunidan kama jiro, musaadafaat ma jirto. ee waxaa jira, waayo musaadafaadku nidaam ma abuuraan, system. musaadafa iyo systemku, coincidenceki iyo systemku waa laba waxa isu cagsiya. kownkan dhammaantiina nidaam buu u dhisan yihi, system buu u dhisan yihi, ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay. nolosha bini aadamkuna waa la mid. idan coincidence dunidan kama jiro. coincidence af soomaali muxuu noqonayaa? isku beeganto. waxuun isku beegmay uun oo mar la arko, laakiin aan ahayn wax nidaam iyo qorshow ka dambeeyo. haddaynu eegno nidaamka ilaahay u dejiyeyna althabaat walitiraad washumuul ayaa ka asala bay dhahaan. sugnaanshiiyo iyo cid walba inuu nidaamkaasi xukumo, ama gaal ahaw ama muslim ama waxa doonta ahaw ama material ahaw, qanuunka ilaahay u dejiyey inuu marayo, barashadiisuna inay suurtagal tahay. amhilada malaa fudud oo dadku wax ku fahmaan. maalan inta badan qawaaniinta sayniska ee dadku yaqaaneen. maalan ilaahay wuxuu dejiyey oxygen iyo hydrogen marka la isku daro inuu soo baxo maxay? biyo inay soo baxaan. haddii beri hore la isku daro iyo haddii beri dambe la isku daro iyo haddii zamanka hadda jooga la isku daro, mar kastoo aad labadaa isu geyso resultku muxuu yahay?
biyo miyaad acid sugaysaa inay soo baxdo may waa qaanuun haabit oo mutrada waa qaanuun laynoogu talagalay inaynu daraasayno oo haddaynu garanno inaynu isticmaali karno haddii maalin marka la isku daro yani biyuhu maalan temperaturekeenna caadiga ah iyo pressureka caadiga ah meeshan aynu ku noolnay waxaa laga yaabaa 100 degree bay ku kululaadaan socankaa maaha 100 degree bay vibration ku gaadhaan ka warran haddii maalin ay 40 ku kululaan lahaayeen maalinna 60 cilmi ma jireen dee soo maaha no science at all waayo wixii waddo loo raaco ma leh markuu yeeshay nidaam loo raaco ayuu noqday cilmi la baran karo wax inta la barto hadhow la tijaabin karo la isticmaali karo sunankaa cid kasta oo raacda ilaahay wuxuu u ballan qaaday inuu natiijada gaadhayo dawaahirta ama muuqaalada dunida ka kor muuqda waa laga saadaalin karaa waxay noqon karaan baa la yidhaahdaa haddaad fahamto sunnada uu raacaya qaacidada ilaahay u dejiyey ilaahayna qur-aanka wuxuu ku leeyahy walaa yadilmu rabbuka axada cidna ilaahay ma dulmiyo qaacidada guusha ciddii raacda waa guulaysanaysaa qaacidada guuldarrada ciddii raacdaana waa guuldarraysanaysaa idan qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala qawaaciddaasi buu si fiican ugaga warramaya qawaacidda haddaynu daraasayno waxaynu garan karnaa xaggaynu u soconnaa waxaynu garan karnaa takhyiir baynu raadinaynaa isbeddel baynu doonaynaa halkuu ka bilaabmaa isbeddelku sidee isbeddel loo sameeyaa waxaynu garan karnaa waddada aynu maanta joogno haddaynu sidan ahaano aynan isbeddel samaynin matalan waxaynu ka warramaynaa carruur baa inaga luntay carruur baa gaala qaadatay carruur baa caynka ku dhacday systemkaynu u noolnahay haddaynu ku wadno uun sidaynu hadda nahay natiijadu waa macruuf jiil ama laba jiil kadib inna kuwan bay ku milmi inna drug dealers iyo xabsiyaday noqon dadkan waaweynina wuu dhammaan doonaa uun waa la garan karaa waa laga tanabu'i karaa waa laga warrami karaa xaggaynu u soconnaa marka haddii aynu garanno qawaacidda bini aadamka maamushaa siday tahay iyo inagu qaabka aynu u wadno haddaynu garan karno waxaan kale oo sunnada daraasadeeda aan ka fahmi karnaa wuxuu siduu u socdo haddaad fahamto waxbaad isbeddel samayn kartaa isbeddelada ayaad samayn kartaa haddaba waxaa isweydiinta leh hadday noloshani nidaam ilaahay u dejiyey ka kownigaa hadday tahay nidaam baa loo dejiyey qawaaniintan aynu baranee physics iyo chemistry iyo waxa kane waa maxay waa fahmun lima yajri waxa socda baynu isku daynay in la garto siduu waxaasi u shaqaynayo markaynu fahamnayna inaynu nolosha uga faa'iidaysanno oo inana wax isku dardari karno technologygu markaa wax la isku walaaqi karo oo wax la soo saari karay keentay waxaa la mid a qawaacidda bini aadamka iyo bulshooyinka maxaa dumiya maxaa hagaajiya maxaa haddii la qaato bulshadu ay hore u soconaysaa maxaa haddii la qaato bulshadu ay dib u dhacaysaa ama gaal ah ama muslim ahun haddaad qawaaciddaa raacdo na horumarka waad gaadhaysaa noociyaadkiisa waad markaa u socoto haddaba waxaynu u baahan nahay daraasa waxbarasho qur-aanka ilaahay wuxuu inagu leeyahy afalam yasiiruu fi lardi fatakuuna lahum quluubun yacqiluuna biha أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور إلهي وحلي دول كم ياني سعنين فلم يسيروا في الأرض دول كم ياني سعنين دبتنا قلبي وحوالي عقل لم ياني لهين دق وحمقشم ياني لهين إندها لما بالئه قلوب طالة بالابا إلهي لي معنى دوام حي waxalayna leeyahy siiruu fi lard bini aadamka inagu gumaynan horeynay taariikh badan oo aadanaba ay soo martay ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramayaa aadamkii lagu bilaabay dadka ilaa iyo jiilal badan oo taariikhda bini aadamka kala nooca soo maray qoomkii nebi nuux leh kii nebi huud leh kii nebi saalix leh kii ilaahay wuxuu kaga warramayaa qur-aanka dhan oo inooga warramayo maxaa laynoogaga warramayaa qur-aanku markuu qiso ka warrama wuxuu odhanayaa faactabiruu yaa uli labsaar ku cibro qaata ku cibro qaadashadu waa maxay waxa weeyaan if you go that way natiijada heleen baad helaysaa
waddadii yahuudi martay haddaad marto natiijadii ay heleen baad helaysaa waddadii fircoon maray haddaad marto natiijadii uu helay baad helaysaa sidaa awgeed baa ilaahay markuu waxa ka warramay waxaa la yidhi ku cibro qaata ku qiyaas qaata yani weeyaan cibro qaadashadu ama ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun qisaskan uga warran baa ilaahay leeyahy waxay mudan yihiin inay fakeraan idan qur-aanka waxaasoo qisaa waxay ugu soo aroortay inaynu daraasayno garanno maxaa dumiyey umamkan maxay u baaba'een maxay u dhismeen maxay waddadan u mareen inxiraafka nooca kani muxuu ugu dhacay haddaynu si fiican qur-aanka u garanno markaasoo u baranno waxaynu garan karnaa waddada la mari karo iyo waddada aan la mari karin sida awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahay war bal taariikhdii idinka horreysay bini aadamka dul socda aayadda labaad ilaahay wuxuu leeyahay qul siiruu fi lardi tii hore maxay ahayd afalam yasiiruu fi lardi haddana maxaa la leeyahay qul dadka waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay leeyahy siiruu fi lardi dhulka socda oo fanduruu eega kayfa bada'a alkhalq sida ilaahay abuurka u bilaabay uma yunshi'u allahu nash'ata alaakhira kownkan daraaseeya baa ilaahay leeyo sidee baa ilaahay u dhisay see buu u dhismay buurtani say u samaysantay dhulkani suu saxaaro u noqday webigani suu u dilaacay baddani say u samaysantay siiruu fi lard war dhulka socda baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala oo fanduruu kayfa bada'a alkhalq sida ilaahay u abuuray ee u dhismay bartaba layna leeyahy kadib baa ilaahay wuxuu ina leeyahy uma yunshi'u nash'ata alaakhira ina allaha calaa kulli shayin qadiir ta dambena saasun baa ilaahay u abuuraya nolosha dambe aakhirana sidan baa loo abuurayaa baa la leeyahy idan hadday tahay qawaacidda bini aadamka ee ijtimaaciga ah ee xadaaraadka iyo umamka iyo dunida iyo dadka noolaha iyo waxa horumarkiisa ku saabsan qur-aanku uu ka warramaya waxa la yidhi daraaseeya dhulka socdoo barta hadday tahay kownkan materialka ah ee cadceedan iyo dayaxan iyo baddan iyo buurtan iyo waxan war socda oo barta baa la yidhi baadha garta saa wax u socdaa maxaa laga faa'iidaya markaa waxaynu ka faa'iidaynaynaa inaynu fahamno ways ama sunan ama dariiqooyin ama jid ama qaabab cadaalad ku samaysan oo laa tuxaabi axada qofna aan u eexanin ee qof kasta oo mara uu natiijadeeda gaadhayo in allaha laa yadlimu annaasa shaya walakina annaasa anfusahum yadlimuun in allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ولله عندنا ما ظلمية با إلهي لا يدتك يجا نفتو ظلمية سيدا كسو جنتهين إلهي وحبك بدل يينا يدكو نفتي نسبة دشان موياني هذا برادك وشرتان إلهي دن كما قوبا يبا ليدنا يدكو سكا قبطان موياني إذن هذا حما كشرته أما بابا كشرته waddada lagu horumaro haddaad raacdana waad badbaadi haddaad uun iyada haysatana waad ku jiri haddaad nimco haysato iyo badhaadhana waddaday ku qubato haddaad martana way kaa daadan haddaad tooskaaga u haysatana way kuu ziyaadi ama way kuu joogi doontaa idan ilaahay wuxuu leeyahay cid ma dulmiyo cadaalad bay sunnadani ku samaysantahy waxay ku salaysantahay caamnimo iyo habaat waxaynu doonayna maaha imanka dunida muslimka oo dhami oo gubanaysa waxaan leenahay maxaa isbeddel u dhici waayo isbeddelku xaguu ka imanaya waxaad doonaysaa mucjizaadka ambiyada inaad hesho xaguu isbeddelku ka imanaya dhulkii uu gubanaya soomaali waa baabaa iscaynkana waa baabaa dadka badh baa waxay dhahdaa gaaladayna laysay war weligeedba gaal iyo muslim dunida waa wada joogeen maa walbaa cid dhistaa jirtay dunida weligeedba challenge bay ahayd cid waliba waa loolamaysa yaa wax bedeli jiray dadku iyagaa naftooda bedeli jiray iyagaa dariiqa isbeddelka raaci jiray saa awgeed baa ilaahay saxaabadii nebi maxamed iyadoo lala hadlaya waxaa lagu yidhi laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab idinka yadidiiladiinana maaha ahlu kitaabka yadidiiladoodana maaha baa ilahay yidhi ee man yacmal suu'an yujza bih war ninkii waddada xun mara uu abaalkeedu helayaa baa ilahay leeyahy nasaara iyo kiristanna waxay jecel yihiin dunidu maaha baa ilaahay leeyahy idinkuna waxaad jeceshiin maaha ee man yacmal suu'an waa dhaqan
iyo waxqabad iyo bini aadamku wuxuu samaysto man yacmal suu'an yujza bihi baa ilaahay yidhi ninkii xuma sameeya ee waddada halaagga isagu orda waa lagu abaalmarinayaa baa ilaahay leeyay walaa yajid lahu min duuni illaahi waliyan walaa nasiira ilaahay sokadiisana cid u gargaarta heli maaya baa ilaahay yidhi ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا نبي الله محمد با إلهي صادري أنبياء محل الله صادري إن الدنيا ده بدلان إن الدنيا ده وهر سادان اسبدل لكن أنبياء مركا يمادان بدتكم يسكر راعيا مايا بلشوين كي الدنيا ده شوغي تشالنج كريني يا أنبياء ده تشالنج بلغلو هوريماني ولا ديدي دبتنا إلهي النبي محمد بالله هدليا وحكولي سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا بإلهي وضدني ووضدي أي مرين كو رسوشا هيا ديك كاهر ريي بإلهي أدنا عدي كو بدالي ميس إن التشالنج كريسات دتكنو عين كان الله رغما ووضدي الرسوشا هربا مرتبة إلهي لي ولا تجد لسنتنا تحويلا بإلهي سنة أما طريقة عسب سهل من سيداد مرتد آيات كلا إلهي وحولي سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ووضد أي مرين كوي أديك كاهر ري اسبدل لما تشربها إلهي لي آيات كلا مركا وحينات المامية دي نبي محمد ليري اسبدل هلي من سيدا وضد آغات هلو يتحامى يا مر from zero ka bilow keli isagoo abuu bilaabay cidna la socon qof baa u islaamay laba u islaamtay saddex baa u islaamtay sidaa noloshu caadiga ay martaa buu maray waa challenge gareeyey waa la eriyaday waa laga saaray waddankiisii waa laga daba tegey waa lala dagaalamay wuu diriray waa guulaystay waa la jebiyey wuu jebiyey ilaahay uu ka soo gaadhay natiijadii kama dambaystahay waa challenge gareeyey dan result ku helay ilaahayna wuxuu leeyahay waa wadada un kuwii ka horeeyay tay mareen hada طريق ayaa ah kii ay mareen dadkii adiga ka horeeyay taa macnaheedu waxa weeyaan ilaahay waxa isu eeg xukum isu eeg busiya waxa kala gedisan xukum kala gedisan beelay wadada dib u markaan maraya oo ilaahay baan ka rabaa inuu horumarisiiyo soo heli maysid wadada horumarkaan maraya ayo waan jabaya soo heli maysid kaad marto ayaa abaalmarkuna noqonaya ilaahay wuxuu tilmaamaya labada waxa kala nooca ilaahay ma simo afanajcalu almuslimiina kalmujrimiin baa ilaahay yidhi dadka ilaahay u hoggaansama miyaan kala madigaynaa kuwa mujrimka yani laba wado kala nooca bay hayaan baa la tilmaamaya haddaba ayuha alaxiba waxaynu leenahay haddii sunnadu ay caynkaa tahay oo qisaskii dadkii inaga horreeyey ilaahay ina leeyahay ku cibro qaata saynu isbeddel u samayn karaynaa sunankaasaynu u fahmi karaynaa weyska ama sunanka ama jidadka ama dariiqooyinka ama qaababka ama xeerka ilaahay dejiyey waxay culammadu yidhahan waa laba xeer xeer waxaa la yidhaahdaa asunna alkhaariqa xeerna waxaa la yidhahdaa bay yidhahdeen asunna aljaariya xeer waxaa la yidhahdaa sunna alkhaariqo ilaahay ma xukumo sunankan isaga awooddiisu way ka ballaadhantay in allaha calaa kulli shayin qadiir kownkan iyo qawaaninta taallaa innagaa laynoo dejiyay inay xukumaan laakiin rabu samaawaati walard isagaaba dejiyey qaanuunkan markuu doonana wuu dumin karaa markuu doona waa dhaafi karaa rabbi subxaana wa tacaala idan waa sunna khaariqa innaga sunanka khaariqa waxaa laynaga tusaa maalan mucjisaadka ambiyada mucjisadu waa sunna khaariqa waa qaanuunkii caadiga ahay oo la dumiyey maalan dayuxu nabi maxamed baa loo kala jeexay idan waa sunna khaariqa qawaaninta naqaano fiskiska ama waxa kanaynu naqaano wuu khilaafsan tahay ilaahay wuxuu tilmaamayaa nebi bad ku yimi oo maxay la yidhi usha ku dhufo uli inay bad kala jeexdaa maantaba haddaad ku garaacdo dee bad ku dilaaci mayso waa sunna khaariqa yani ilaahay wuxuu ina barayaa awooddiisa wuxuu ina barayaa inaan isaga sunankani xukumin in allaha calaa kulli shayin qadiir inuu yahay wuxuu ina barayaa
adilla buu soo raacinaya inu ku rumaysano rusushiisa oo daliil bay u tahay rasuulkan mucjiza in ilaahay subxaanaه wa tacaala khaariqa soo siiyey waxaa la mida bay yidhaahdaan min bacdi aw min waraa'i alambiyaa awliyada karaamaadka ilaahay siiyey masalan qur-aanku haweeney buu ka warramaya karaamo badnayd oo maryamo la yidhaahdo maryan waa gabadha qura qur-aanka magaceedu ku soo arooray waxaana filayaa 22 jeer inay gaadhiso inta magaceedu qur-aanku uu ku yaallo gabadh kaloo qur-aanku magaceedu ku yaalla ma jiro kuwa kale imra'atu fircawn iyo imra'atu kada iyo saasaa ugu qoran imra'atu nuux iyo imra'atu gaal iyo muslim waa ku soo arooreen laakiin waxa ilaahay magaca dhabay xataa hooyadeed imra'atu ali cimraan waxa ilaahay magac dhabay oo dumar ah waxaa ku soo aroortay qofkaa dumaree maryamo la yidhaahdo oo ilaahay ku tilmaamayo sidiiqa inay ahayd wa kaanat ummuhu sidiiqa waxaa lagu sifaynayaa oo qur-aanku inooga warramaya karaamaadkeedii wax ka mid ah waxaa laynoo sheegay iyadoo iska tukanaysa inay raashin heli jirtay oo nebi zakariya intuu soo galay uu weydiiyey xaggee aad ka keentay ay ugu jawaabtay in allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab waxaa qur-aanku ka warramaya iyadoo umul ah in la yidhi geed timiraad ruxrux geedka timirtu ma aha geed ruxrux wax kaga soo dhacaan timirta saa loo guro sooma taqaaniin ninbaa xadhka loogu xidhayo cirka koro oo dabeetana geedka ka soo guro oo timir geed intaasaa la yidhaahdo midho ka soo daataan timiri maaha iyadoo umul ah oo dumarku markay u jilicsanaay ahaayeen ayaa la yidhi wahuziya ilayka bijidci nakhlati tusaaqit calayka rutaban janiya geedkan timirta adigu taataabo ruxrux timir baa ka soo daadanaysa rutaba baa kuu soo dhacaye idan waa min baabi alkaraama waa ilaahay baa karaameeyey iyadoo aan nin arag baa la yidhi wiil baa lagu siinaya iyadoo aan nin baa arag ayaa ilahay yidhi wiil baa lagu siinaya oo nebi ciise ilaahay subxaanaه wa tacaala siiyey waa min baabi alkaraama idan waxaynu leenahay ambiyada mucjisaadka la siiyey waa sunanka khaariqa ah masalan waxaynu noqonaa dabku inuu wax gubo socankaa maaha qur-aanku wuxuu inooga warramaya nebi inta dab lagu riday ilaahay ku yidhi maxay yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim dab yahow beraf u noqo berafkuna wax buu dilaa laakiin waa salaaman baa la yidhi beraf wax nabadgeliya qabow wax nabadgeliya noqo nebi ibraahim isagoo blood and flush ah isagoo jiidho inala mid ah oo aan wax antifirena sidan waxna ku xidhnayn ayaa dab lagu riday waliba mufasiriintu maxay dhahaan dabka lagu ridayey og inta la shiday manjaniiq loogu rido dab aan loo dhowaan karin xataa sida madfaca lagu soo ganay oo lagu dhex tuuray ilaahay wuxuu ku yidhi yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim qur-aanku mucjisaad tiro badan oo ambiyadu lahayd buu ka warramaya iyadoo reer banu israa'iil harraadeen oo nebi muuse ay yidhaahdeenna waraabi biyaynu doonaynaa lamaba odhan cirka gacmaa u taagoo daruur baa imanaysee dhagax agtiisuunbaa la yidhi usha ku dhufo 12 ilood baa ka burqanaye ul dhagax lagu dhufto biyo ka soo burqadaan sunnada caadiga maaha idan haadihi sunan alkhaariqa waa sunno ilaahay inugu barayo awooddiisa mar labaadna lagu caddaynayo dadkan ilaahay doortay oo rusushatan mucjiso u ah nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay saxaabadu biyo u baahdeen weyso dabeetana weelkeena buu yidhi waa la keenay intuu gacanta geliyo ku duceeyey biyuunba gacantiisa alla ka burqiyey dabeetana dad 70-80 ninaba ka weysaystay gacan bini aadam inay biyo ka burqadaan oo xataa hadday dee biyaba ka soo burqan lahaayeenna 80 qof ama 70 qof waxay ku weysaystaan inaanay ka soo burqanaynin gacan caadiya waa macruuf waa min baabi maxay min baabi almucjisaat walkaraamaat haddaba innaga laynama odhan sunnada khaariqa la dhaqmo innaga waxaa layna amray assunan aljaariya waxa la yidhaha inaynu la dhaqanno sunnada caadiga sunnada dareertay sunnada dareertay waa maxay waxay culammadu yidhahaan sunnada dareertay waa 2 nooc
midi waa mid materialka ku saabsan umuuru طabiica najerka caadiga ah oo maalan ilaahay qaab buu u dhigay habeenkii iyo maalintu inuu isu weydaartaan qaab baa loo dhigay cadceeddana inay u socoto qaab baa loo dhigay meerayaasha cadceedda ku wareegaya inay u socdaan qaab baa loo dhigay dayaxu u socdo waa sunan muxadada oo hadday jidkaa ka baxaan dunidu way baaba'aysaa ilaahay baa u dejiyey qaanuunkaasi inay ku dhaqanto oo ilaahay wuxuu ina leeyahay awalam yarow kayfa yubdi'u llaahu alkhalq uma yuciidu war dadku miyaanay arkaynin sidan dunida u bilaabay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala qul suuruu fi lardi fanduruu kayfa bada'a alkhalq الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير بل إركن إيجا با إلهي لي يدول كان يوحنسا إلهي وأبوري ميا وحكا لديري دا أركتان ما أنت علماء الساينس كم حيد هذا وحي شيئا وحي وبحيين فاين تونينج وامحي waxay leeyihiin wax kastaaba mostly sida uu yahay haddii bidix iyo midig midun looga dhaqaajiyo ama ziyaado loo dhaqaajiyo ama nuqsaan loo dhaqaajiyo noloshu ma jiraysay leeyihin anything waxaa laaliya waxaa qawaaniin gravity leh ee forces leh ee waxaa doonto sheeg waxay leeyihiin isbeddel haddii lagu sameeyo alxayaati dakiya the intelligent life ma jirayso dabeetana tusaalayaal bay bixiyaan ciiddaa ka badan ilaahay waxay dhahdaan waa irbad saaran annuqta alxarija yani raadiyoga soomaalida markaad baarayso meel baa jira fine tuning aad saarto haddaad xagga uga yaro tashuush baa ku furmaya ama qeynaysa haddaad xagga uga yaro qaadaan halkaasumay sax ku tahay halkaa unbaad ku heli kartaa BBC ama waxaa ku heli kartaa addunya kullaha point bay saarantahay bay leeyihin that point hadday xagga dheeraadka uga dhaqaaqdana noloshu jiri mayso hadday xagga kalena uga dhaqaaqdana jiri mayso yaa sheegaya asxaabkan physicska ka warramaya waxa kan more than 20 constants bay ka warramayaan mid kastoo isbeddel lagu sameeyo dunidu baaba'ayso ama aanu noloshu jiraynin markay ka warramaan big bankoodii iyo waxoodoo dhan wax badan bay tilmaamayaan ay leeyihin hadduu intaa ka dheerayn lama ka gaabin lama noloshu ma jirteen idan ilaahay wuxuu ina leeyahy warbar dunidana wax kala dheeraada miyaa ku aragtaan everything baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waa wax la xisaabiyo meel loogu talagalay leh farjic ilbasar hal taraa min futuur baa ilaahay leeyahy ku celceliya balisha inaad godaloola heshaan laa takuunu abdac mima hiya bay idhaha siday haddatay si ay kaga qurux badan tahay lama heleen siday hadda tahay ee u dhisan tahay ee ilaahay u qaabeeyey si ay kaga qurux badan tahay lama hayo marka coincidencena ma jiro wax musaadafa u dhacayna ma jiro wax iska yimina ma jiro wax time ku sameeyeyna ma jiro taa macnaheedu waxa weeyaan nolosha ilaahay wuxuu ina leeyahay barta oo haddaad barataan kownkan sidaan u dhisay aqoonta sayniska la sheegaya waa maxay saynisku muxuu yihi waxay dhahdaan saynisku waa waxa jira siduu u shaqaynayo la fahmo technologyguna waa maxay waxay dhahdeen waxaa markaad fahamto waa taqliidu طabiica inaad najerku siduu shimbirtaasi say u duusho in dayaaradda loo kicin karo taa istaagani say u isu taagteen helicopterka loo taag waa ishu say wax u aragto in telescope loo sameeyo microscope loo sameeyo waxa weyn in la arki karo waxa yar in la arki karo waa just nature-ka ishu u shaqaynaysay marka la fahmo lenseska isha ku jira say u shaqaynaysay marka la gartay ayaa waxa la gartay isha in la dheerayn karo oo in badan la arki karo ama in la yarayn karo in yaroo aanay ishu qaban karin hoos loo arki karo idan nolosha dhammaanteed bay leeyihin waxaa aqoonta lagu sheegayaa waxa weeyaan waa najerka sida alla wax u abuuray say u shaqaynaysa inaad fahamto after thatna technologygu waa inaad taqliidiso sidii oo kale aadna inaad wax isugu dardarto si uu kuugu hagaago waayatun lahum alleylu naslakhu minhu nahaara faidaa hum mudlimuun والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون waxaasoo dhami waa meere
ilaahay wuxuu ku tilmaamay tacbiirkaa fii falak orbit ayay yasbaxuun dabaalanayaan baa ilahay yidhi wax taaganiba dunida ma jiraan bay leeyihin everything wuu socdaa tasaadumna ma jiro wax isku dhacayna ma jiraan wax walba sidaa loogu talagalay u socdaa kaasi waa sunanka kowniga oo haddaynu daraasayno waxay keensanaysaa noloshu sidaynu u horumarin lahayn inuu ka baranno dhankeeda materialka midna waa sunanka ku saabsan nafta bini aadamka iyo wixii la halmaala ee ku saabsan dulmiga cadaaladda xorriyadda horumarka dadnimada dhaqanka caqiidada cibaadada awaamirta ilaahay oo la raaco nahyigoo waxaasi wax waliba iyana natiijay leeyihin keena waa sunan alxayaa waa sunnadaa ilaahay nebi maxamed ku leeyay sunnata man qad arsalnaa min qablik waa jidkii ay mareen kuwii adiga kaa soo horreeyey isbeddel la heli maysid ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا والسنة ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا فهل ينظرون إلى سنة الأولين دول بقى هاي كورمي دبتنا إلهي وحلي ميدد كان السجيان sunnadii kuwii iyaga ka horreysay mooyaane waddadii kuwii iyaga ka horreeyey mareen mooyaane ma wax kaley sugayaan baa ilaahay leeyahy falan tajida lisunnati illaahi tabdiila walan tajida lisunnati illaahi taxwiila idan caasiga iyo mutiica mu'minka iyo kaafirka sunna u taalla horumarka iyo dib u dhaca sunna u taalla dulmiga iyo cadaaladda sunna u taalla xorriyadda iyo isticbaadka sunna u taalla haddaad sunanka dadka la halaagaya martana waa lagu halaagi haddaad sunanka dadka guulaysanaya martana waad guulaysan darsigani markaa wuxuu ku kooban yahay ilaahay kitaab qur-aan uu inoo soo dejiyo oo waxaasi uu ku bayaaninayo kitaabkaasi waxa uu ka warramayaa hadday nolosha adduun tahay sida loo horumaro waxa uu ka warramayaa kitaabkaasi nolosha bini aadamku hadday tahay sida isbeddel loogu sameeyo nolosha bini aadamka hadday tahay sida isbeddel loogu sameeyo wuxuu ka warramayaa kitaabkaasi inxiraafaadkii bini aadamku galay maalan waxaa la yidhahaa fii suurati albaqara aadam iyo wixii ku dhacay baa ilaahay ka warramay kadib baa waxaa laga warramayaa aadam qof buu hayay jamaaco iyo waxa ku dhacaysa jamaacada sidaa ilaahay ula dhaqmayo reer banu israa'iil baa marka qisada aadam la dhaafaba laga warramaya waxay yidhaahdaan fii suurati albaqara 286 aayadood weeyaan 110 aayadood baa yahuud ka warramaya reer banu israa'iil ka warramaya qisadoodii maxaa laga warramayaa taariikh dheer oo ay leeyihiin waxay qalqallooc soo mareen iyo waxay wanaag mareenba waxaa laga warramayaa mar iyagoo madax noqday iyagoo boqorro noqday iyagoo nebiye helay waxaa laga warramayaa iyagoo dulmi sameeyey iyagoo daayara laga dhigay iyadoo la halaagay yacni qisa scenario aada u tiro badan oo ah maray jabeen maray guulaysteen maray fiicnaayeen maray xumaayeen maray wanaagsanaayeen ayaa ilaahay ka warramaya dabeetana waxaa layna leeyahay ku cibro qaata jamaacaadkiina ka dambeeyaana that's the way saasaa ilaahay kuwan ula dhaqmay reer banu israa'iil dad ahaan haddii la eego soomaalidu maxay dhahaan hebel waa laandheere sooma yidhahdaan iyo hebelkaasi waa haddii dad ahaan la eego waa laandheere waa niman nebiye ku abtirsada nebi ibraahim baa dhalay ibraahim nebi isxaaq buu dhalay nebi isxaaq nebi yacquub buu dhalay nebi yacquub nebi yuusuf buu dhalay haluma waa nimankaa nebiyada ku abtirsada israa'iilkan laguu sheegaya waa nebi yacquub israa'iilku waa nebi yacquub yacquub waa nebi aabihii waa isxaaqo waa nebi aabihii awowgii waa nebi waa nimankaa nebiyada ku abtirsada laakiin ilaahay wuxuu leeyay maca nebiyada ay ku abtirsadeen nebiyaa dhalay laguma xisaabina waddada ay mareen baan ku xisaabiyey baa ilaahay leeyay markay fiicnaadeenna waa guuleeyey oo taaluut iyo iyagoo ciidamo jabinaya iyo nebi daawud u dhashay iyo waxbaa ilaahay ka warramaya markay fiicnaadeen way hagaageen markay xumaadeenna waa lumeen baa ilaahay leeyay waa la baabi'ey marka darsigayga wuu kooban yahay wuxuu ku kooban yahay hal kelimo ah oo ah qur-aanka markaynu akhrisanayna aynu nadro kale ku celino aynu dib u fahamno
وإنه قرنه وحن وأمثلة وتصاليا للهنا الصينيو هدو كون كان يسيدو لسان هنا إلهي وحولي ساسانو لسان اسكد يانا برطان مركا برطاننا وكفى إيدين كرتان all sciences وكون كانوا لفهمي هداي تيتا نولش بني آدم كان إلهي وحولي جيد كاسان ودجيي وهداد ربضا قادنا جهنمو قشا تا هداد قادة جنة قشا تا هداد قادة عزي الدنبات قشا تا هداد قادة وهاد شابيسا ولبا قصة كستنا تسالة لينغا سيئ مركا كوا شابي كوا قوليستي كوا لبابية كوا داير لغا ديگا كوا عين كان بشر كي دوني دا سوام مرودن با لا بنت اللقلية رب السماوات وكاغا ورمي وكولي واطا وحيكا صوابحي يا أي طريق تريد أدوك هدوا أدوك جدكا دونيسا جدكوا كاسي كيبا دونيسا أصل كنا وين إنو كان خلا نقنا وسنة تنبا إلى هنا اللي بدل ما وين إنو تنكون نقنا السنة الخارقة ملا الدعاء دو قرأي نقا سوق شيء نقا انت بدل دعاء ده الله كأقبل وقدرك وحكا بدش لكن ده دعاء دو أفراد يكان مدن انت اسكا فارستان وين دعينو ويسبدليسا ماكو هاي نقراك marka kelmadeedu waxay ku koobantay hadaynu ubadkeenan iyo dadkeenan iyo waxaanu fakarayno waa inaynu maraajidkay ku badbaadi lahaayeen oo ugu horeeyay inaynu soo tagno oo ku xigay inaynu wax qabsano inaynan cid kale tamaniyin inay noo maqan tahay wadaad ba ku maqanaya carab ba soo soo waxa inaynu ka baxno inaynu ku xisaabtano warsaynu u dhowran karnaa waxeena haday wadankeenii tahay mujtamaca duwaligaana soo gaadhaya iyo dadka dunida ku nool baa dawladda noo samaynaya waxaas waa sheeko dad wax u taraa ma jira qofka bini aadamka waa ku yara hinji karaa ama wax yar buu ku siin karaa laakiin it's up to you Soomaalida waxay ku maamaadaa ruqay ninkii lahaa dabada hayaa ma kacda bay dhahaan ruqayda soo ma taqaaniin neef geelo gaboobay oo fadhiya oo ninkii lahaa dabada sii hayo dhulka ku xijinaya dee istaagi mayso awalba way tamar daray hadduu kii lahaana dabada sii qabto dee kici mayso تاني سنة ما ضنا بتو سوماليا قول كقولي سميشه ما انتظرنا ترى سوماليا قول يو هاي سرعة يو سوماليا يتوصي كتو سميشه وحن بيس بدل كوي من كره هدينو ينقو كل دقائقنا وحيس بدل كوي من كره هدينو ينقو كل دقائقنا هدي النبي محمد إلهي يري عليه الصلاة والسلام وشتكي كوي كاه الريا مرينا هذا قرا مر ما ده سوق ينا الريا وحكوها شمركها إلهي النبي يسوع دورتي بالي السنة من قد أرسلنا من قبلك وكوي هذه كاو الري وضضي مرين تنا ضايسا دي روسعو إذا وحينه باهنهاي درس كود مي وحكو كوبني ور إلهي الدنيا دوا أبوري وأنا على كل شيء قدير السنة دي سوى بريكرة لكن وحينه يجي سنة الجارية بان دخول الرقمية هذاك هامرتان وإذا كأبال مرني هذاك هامرتان وإذا كأبال مرني إنه كابين ربنا بيسوي دين تله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.